السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ku xiran kanaalka Dooreysatjiya kusoo dhawaada بسم الله الحمد لله رب العالمين الله يا ماد iska leh oo maanta cashirka aan soo jeedinayno oo inoo ogolaaday waa alama hadiisa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xabadul rashaad saa u jeedaa xabadul rashaad waa kana daqiiqan waaye xabadul rashaad asoo daqiiqsan la shiidayna waa kana maasha Allah intaan cashirkeenu guud galin waxaan rabaa inaan ka hadlo xabadul rashaadka waxaa loo isticmaalaa dadka ama haweenka oo dhowr sano la qabay oo aan helin wax ilmo ah sidoo kale waxaa loo isticmaalaa infectionka waa loo isticmaalaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa xabadul rashaadka haduu minkaaga ama haduu oo caadadaada hadii caadadaada markaas ay qalqal ay ku jirto ama ma bilba si ay ku imaanayso hadaa isticmaashid caadadaada ku saxmaysa isla markiina ku soo degdegaysaa insha Allah biidnillaahi kariim caadi wareerka inta xanuunsan Ilaahay caafiyo inta caafimaad khatar Ilaahay u siyaadiyo walaashiina Dooreysatjiya haduu muuqaalka idin cajibiyo subscribe like share insha Allah waxaan rajeynayaa dadka oo fiirsado muuqaalkan qasab ma aha inay share dhahaan ama like ay dhahaan laakiin hadaa ka hesho muuqaalkan si share garay si walaalkaaga u baahan si uu faa'iido oo kuma haysantihiin xabadul rashaadka waa kana waa miraha yariiska ah waaye miraha saan u yar waa ila aragtaana maleena miraha saan u yar waa dadka qaar oo isku qaldaan xulbada iyo waxay isku qaldaan xabadul rashaadka mid kale waxaa jirta xabadul rashaadka oo eg sidoo kale xabadul rashaadka waxaa loo qaataa ama loo isticmaalaa dadka dhowr sano la qabo aan ciyaalka dhalin Ilaahay ciyaalaha ku siiyo oo Ilaahay khayr qaba ha siiyo ayaa isticmaala sidoo kale waxaa kale lagu daaweeyaa caadi wareerka sidoo kale caadi wareerka lagu daaweeyaa dadka caadada soo daal ama isdhaaf ugu imaado ama bishiiba ugu imaado 2 mar ama 3 mar ugu imaado sidoo kale way wanaagsan tahay sidoo kale infectionka ku dhaca dumarka si baqaas ahaan dumarka infectionka ku dhaca wuu wanaagsan yahay inay qaataan وكحمهودا نظيفة يكون قان ديغودا نظيفة يكون قنايا xabadul rashaadkan waxaa loo isticmaalaa qaabka loo isticmaalo hadaan idin sharxo waa daqiiq ayaa ka dhigaysiin sidaan oo kale hadkan daqiiq waaye waa daqiiq budo waaye saa u jeedaan budodan ay xal raa marka waxaa ku darsanaysaa budodan ay u jeedaan ayaa waxaad ku darsanaysaa malab saafi ah ملف سافي زائد وسافي inaad hesho sidoo kale hadaa malab saafi aad haysanin waxaad ku darsan kartaa ama kula cabi kartaa xabadul rashaadka caano fandiir ah sidoo kale waxa isticmaalkeedu ku xiran xilliga caadada ay ku joogto markii caado ku imaado ku bilowdo inaad isticmaashid sidoo kale xabadul rashaadka waxaa isticmaalaysaa subaxii hore aroortii ayaa isticmaalaysaa mid kale marka oo la shiido iyo marka oo dhan yahay isku caraf maahan laba caraf ayuu kala wataa sidoo kale xabadul rashaadka asagoo iska carfayaa laakiin si qaraar waaye qaraarkiisa inaad u dulqaadato ayaa lagaaga baahan yahay waaye waxaa rabtaa inuu awlaad baari Ilaahay ku siiyo biidnillaahi kariim anagana waan soo duceynaynaa inta xanuunsan inta awlaad rabta Ilaahay ha ku siiyo inta ku xanuunsan Ilaahay ha caafiyo caafimaad ha ku siiyo xabadul rashaadka laba qaab oo isticmaal kartaa aan dhahnay sidoo kale malab saafi ah ayaa ku darsanaysaa qaandad yariista ah oo raxa marka isticmaalaan oo shaaxa ama gaxwada sokorta ay ku labtaan qaandad yariista ah oo hal mar qaadanay ku darsanay ku walaaqanay waa cabaysaa malab saafi ah haysatid sidoo kale hadii malab saafi ah haysanin aadan joogin meel saafi laga helayo waxa ku isticmaal kartaa caano booraha oo ku qastid biyo fandiir ah marka ku qasishii shaaxo ka biyo fandiir ku qasaysaa kadibna
qaandada yariista aan soo qaadana hamar ku darsanee kadib markaa walaaqatidna waa ku cabaysaa. ilaahay awlaad baari hanigu siiyo insha Allah biidnillaahi kariim. xabdurshaadkan waan soo tijaabinay laba gabdhood asxaabteyda ka mid ah ayaan ku soo tijaabiyay maasha Allah waa isticmaaleen waa la hubaa daawadan daawo aan la hubin ma soo gelinayo qadka ama ka faa'iideys ahaan waayo waxa barto waxa la qofka walaalkaaga ah waa inaad asagana ugu faa'iideysaa waxa laga yaabaa inaad u baahan tihiin insha Allah. hadda gabar wala saaxiibtay aan ku barooweeyay kadibna had uuraya la 3 bilood uuraya leedahay maasha Allah ilaahay awlaad baariyaa siiyo. sidoo kale gabar kale saaxiib aan nahayna oo isla xaafadda deganaydan waa siiyay way cabtay hadda uurkeeda bilooyin waaye maasha Allah way ku heleen labadoodaba insha Allah. waxaan rajeynayaa intii hadda fiirsatay ama hadda uur u baahan dhowr sano la qabay ama hal sano la qabay insha Allah inay isticmaalaan insha Allah wixii oo fikrad aga qabtaan commentiga igu soo gudbin kartaan. xabdurshaadka sidoo kale Soomaali ahaan waxa la shanfax ayaa lahaa suuq bakaaro waa la ka helaysaa darays xabdurshaadka. sidoo kale muhiimada aan ku soo koobno muhiimada waxay tahay dadka uurka leh halka sano ilaa iyo 2 sano 3 sano ilaa 7 sano ilaa iyo inta la qabo aan wax dhalin ayaa awlaad ilaahay ku siinayo furaa. sidoo kale tubooyinka wuu furaa oo xamaha sidoo kale wuu soo diyaariyaa wuu furaa maasha Allah. sidoo kale caado wareerka wuu toosiyaa caado wareerku u fiican yahay. sidoo kale shanfaxa ama xabdurshaadka habsa u taqaano sida hore u sheegay laba qof oo saaxiibaan mahayaan ku soo barweeyay maasha Allah dan uur ay ku leeyihiin sidaa darteeda ayaan hadda u soo geliyay qeyrada soo qaatay haas iri walaalaha kalena insha Allah way u baahan yihiin uga faa'iideey insha Allah wixii kale faa'iido ah oo ni dheerahay insha Allah waan soo gudbinayaa idinkana kulay waxa la aqoonta laga weynaade kale insha Allah waxa tahay sidii noo soo gudbiyaa maasha Allah aad ugu mahadsantihiin daawashada. sidoo kale mid kale aan sheegayo waxay tahay xabdurshaadka isticmaalkiisa koob caano ah oo fandiir ah ayaad ku darsanaysaa qaandada yariista ah oo loo isticmaalo sokorta caruurta iyo kuwa oo lagu qasto qaxwada iyo shaaha oo kale lagu qasto ayaa u isticmaalaysaa. sidoo kale waxaad cabaysaa laba waqti cabaysaa subaxii alisay salaad subax markaad dukato ama marka oo salaad subax la adimayo kale ama la aqimaayo kale xiligaas cabaysaa. sidoo kale qaybta kalena waxa cabaysaa habeenkii markaad seexanaysid soo diyaarsid insha Allah waa cabaysaa. sidoo kale waxa ku isticmaali kartaa malab saafi ah ama caano fandiir ayaa ku isticmaali kartaa labada shay ayaa ku isticmaali kartaa insha Allah. wixii kale oo ni dheerahay ama faa'iideysi ah insha Allah waa nila soo gudbinayaa insha Allah. subscribe like share comment waxaad qabto yaa laga baqaynin waa walaashiina yarasiya insha Allah. inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta caafimaad qabta ilaahay ha u siyaadiyo inta awlaad hadda haysan ilaahay awlaad ha u sahalo insha Allah. inta hadda ka cabanaysa xanuunada kalena ilaahay ha bogsiyo insha Allah. ilaahay bogsiyo biidnillaahi kariim anigana ilaahayna wada caafiyo. waxaan halkan u taaganahay inaan idin soo gudbiyo wax alaala wixii idin anfacayo sida daawo cuntooyinka borotiinka leh sidoo kale waxyaabo badan inaan soo geliyo oo idinkani anfacayo qudaarta dalkeena sidoo kale waxyaabo badan inaan soo gudbiyo insha Allah. mawduuca idinkan waxaan iga codsanayaa ahbaabi inaad hal qof ugu yaraan hal qof inaad gaarsiiso asxaabtaada ka mid ah. waxaa laga yaabaa maanta in ay u baahan yihiin dhibkan adagana aysan ku sheegan karin marka haddii aragto fiidiyoga ama muuqaalkan insha Allah kalsooni ay ka qaadaysaa biidnillaahi kariim. ilaahayna ubad khayr qaba ku siiyo xanuunka ilaaha ka qaado. idinka aad maasantihiin waxaan iga codsanayaa inaad ila shaqaysaan waad ku maasantihiin daawashada. kaliya looma isticmaali karo xabdurshaadkan dadka oo ilmaha ka maqan ama aan haysan awlaad
sidoo kale gabdhaha oo ku xanuunsan caadada way isticmaali karaan, sidoo kale dadka infection ka qaba way isticmaali karaan. sidoo kale horta marka la isticmaala baashaan soo hor wuxuu sheegay marka caadada ku timaado ayaa bilaabaysa isticmaalkeeda, marka uu ku joogso caada ama ay ka dhamaatana waad iska joojinaysaa insha Allah biidnillaahi kariim. sii share gareeyo, like, comment. waad ku mahadsantihiin muuqaalkan daawashadiisa. haddii uu muuqaalkan ku cajabiyay insha Allah waxaan ka arko like-kaaga aan ka arko iyo comment-gaaga aad mahadsantihiin axbaabi.